Assalaamu calaykum. Maanta waxaan sharaxaad ka bixinaynaa film American supernatural horror ah oo la yidhaahdo Mirrorstone wuxuuna soo baxay 2010. Taawo oo taxadar leegta noo taabo subscribe noo saar ana waxaan soo gelin doonaa muuqaal idin ku caajisiin mahadsanid. Filmku wuxuu ku bilaabmay lamaane Max iyo saaxiibtii Kayla oo ku jira gaadhi. Max wuxuu qorsheynaya inuu soo jeediyo Kayla inuu guursado balse intay hadal yar ku guda jiraan ayay galeen shil. Max wuu badbaaday balse Kayla ma dhicin oo meesha ayay ku dhimatay inkastoo aysan ahayn qalad. Max aad ayuu uga niyad jabay geerida ku dhacday saaxiibtiis una iloobi laayahay aad ayay ugu adkaatay. xataa waxa uu booqday dhakhtarka dhimirka Dr. Beaumont ayaa ka caawinaysa si uu uga gudbo xaaladda laakiin wax faa'iido ah uma yeelan. Muuqaalka xiga waxaa la aragnaa waardiyaha habeenka ee lagu magacaabo Henry wuxuu wareegayaa agagaarka dukaanka. Wuu soo galay wuxuuna mara ka qaaday muraayad weyn. Dabeed waxa uu bilaabay inuu isku sawiro qaabab kala duwan yacni uu isku daawado. Dabeed waxa uu dhaqaaqay xagga hore ee muraayadda isagoo sameynaya style ilaa uu sawirkiisii muraayadda u dhaqmo hab la yaab leh. Milicsigiisu waa shaqayn waayay naxdin awgii. Tooshka ayuu dhulka ku tuuray muraayaddii saarnayna way jabtay. Argagax ayaa ku dhacay jabkii muraayadda ayuu soo qaaday uu bilaabay inuu calaaliyo. Henry argagax ayaa ku dhacay kadib dhiig ayaa afka ka yimid. Aragtidiisa muraayaddana ay run tahay. Qayliyo ooyin ayuu isku daray balse ma hadli karo. Caawimaad ayuu dalbaday balse qofna ma joogo. Subaxdii dambe Max ayaa waxaa soo wacay aabihii Jack Matheson wuxuu ka codsaday inuu ka bedelo waardiyihii hore ee dukaanka. Jack ayaa sheegay in mid ka mid ah shaqaalooda uu maqan yahay uu dhowaan ka tagay shaqada askariga ilaalinayay isagoo dhibaato weyn ku qabo inuu furto dukaanka. Wuxuu soo jeediyay Max in ay fursad weyn u noqon doonto inuu ismashquuliyo uu noloshiisa sii wato isagoo maqlaya erayada dhiirigelinta uu aabihii ku leeyahay. Aabihiina wuxuu kula talinayaa inuu xaaladdan ka baxo. Waqti uu halkaa u sii socday wuxuu la kulmay gabadh aad u qurux badan oo ku dhajinaysa gidaarka warqado yaryar oo ku saabsan walaasheeda maqan. Gabadha warqadaha ku qoran cid kale ma waa shaqaalaha CK. Wuxuu tagay dukaanka waxay isbarteen maareeyaha dukaanka waxaana lagu magacaabaa Keller iyo gudoomiye ku-xigeenka howlgallada Ryan Barker iyo iibsadaha Jenna Marti. Kadib hordhaca Max wuxuu taas u galaa maqaaxida si uu koob kafee ah u diyaariyo isagoo taa ku guda jira wuxuu fiirinayaa muraayadda wuxuuna arkay naag argagax leh oo gadaal ku dhaygagay. Intuu sii eegayo wuxuu arkay naagtii oo muraayadda dhinaca kale ka qaraacaysa isagoo arkay muuqaalkii argagaxa lahaa si degdeg ayuuna uga soo baxay. Subaxdii waxa uu soo booqday dhakhtarkii dhimirka wuxuuna uga warramay wixii uu arkay habeenkii. Dr. Beaumont ka hor intaysan u qalbi qaboojin wuxuu u sheegayaa inuu ka soo baxayo riyooyinkii iyo calaamadaha tilmaamaya si uu noloshiisii hore dib ugu laabto. Kadib Max habeenkii shaqadiisa ayuu ku soo laabtay wuxuu ku wareegayaa dukaanka si uu u hubiyo alaabta taalla. Meel kale waxaan aragnaa gabadh lagu magacaabo Jenna oo isku diyaarinaysa si ay u meedhato oo gasho musqusha si ay u qabaysato. Max ayaa goobtii dib ugu soo laabtay si uu u indha-indheeyo. Muraayaddii weyn ayay ka soo baxay sawirka Jenna oo madaxa iska goynaysa. Jenna oo meedhanaysa ayay silma filaan ah lugta iska jartay iyadoo lugta is xidhay waxay ka soo baxday musqusha si ay u nadiifiso dhaawaca. Waxay u soo dhawaatay miiska labiska iyadoo nadiifinaysa sawirkeeda muraayadda ka soo fiirinaya ayaa cabsi gelinaya. Way siibatay iyadoo ku degtay tuubada qabayska iyadoo jabisay albaabka muraayadda waxay dhowr jeer isku dayday inay kacdo laakiin si lama filaan ayay u siibatay quraarad weyn oo xagga sare ka soo dhacay oo madaxa kala gooyay. Kadib muuqaalka xiga waxaan aragnaa Ryan oo ku soo dhawaaday Max oo uga warramay geerida naxdinta leh ku dhacday Jenna. Max wuxuu ka waraystay sida ay u dhimatay aadna uga naxay markuu ogaaday inay dhimatay iyadoo madax laga gooyay. Kadib Max wuxuu ogaaday in habeenkaas muraayadda ku arkay dhimashada dadka. Kadib Max wuxuu ka shakiyay inay wax khaldan yihiin. Kadib wuxuu bakhaarka dhexdeeda ka raadiyay ruuxa. Kadib wuxuu muraayadda ku arkay reereyn la arkayay isla isagii oo calooshiisa goynaya kana soo saaray xubnihiisa gudaha oo kala siibaya caloosha. Dhanka kale waxaan aragnaa Ryan oo gurigiisa ku sugan oo casho diyaarinaya isagoo u sii jeeda miiska cuntada. Ryan ma uusan arkin milicsigiisa muraayadda wuxuuna bilaabay argagax. Kadib Max ayaa dib ugu soo laabtay dukaanka. Max ayaa si degdeg iskugu dayay inuu helo siyaabo ula xiriiro Ryan si uu ugu sheego waxyaabaha jira. Ryan oo muraayadda hab la yaab leh u fiirinaya milicsigiisa silma filaan uga soo muuqda muraayadda isagoo gacmaha ku haystay mindi ayuu iska jaray anqowga taasoo keentay Ryankii dhabta inuu ku qayliyo xanuun oo dhulka ku dhaco. Dhanka kale Max ayaa helay lambarka kula xiriiri lahaa Ryan oo wacay Ryan wuxuu isku dayay inuu qabto lambarka balse ka hor intaanu sidaa yeelin awrkiisii ku jira muraayadda wuxuu isticmaalayaa mindida si uu ugu jexjeexo caloosha. Aakhirkii Ryan wuxuu u dhintaa dhiigbax xad dhaaf ah. Kadib Ryan markuu qaban waayay taleefanka kadib Max wuxuu bilaabay inuu u soo ordo dhinaca guriga balse markii uu soo gaadhay halkaas wuxuu ku arkay askar boolis ah iyo shaqaalihii warbaahineed oo kala duwan oo durbadiba iskugu yimid. Wuxuu isla markiiba wacay aabihii una sheegay in uuna sii wadi karin shaqadaas. Waxyaabo la yaab leh ayaa dhacaya mar uu aabihii la hadlayay. Wuxuu arkay muuqaalka aabihii oo ku jira barkadda biyaha halkaas oo uu meelo badan ka go'ay wejigiisa. Si degdeg ayuu u gartay in aabihii uu khatar ku jiro wuuna orday. Meel kale Jack ayaa dareemaya gaajo oo u dhaqaaqay jikada si uu u samaysto cunto isla markaana waxaa ka soo muuqda muraayadda sawirkiisa isagoo eegaya Jack wuxuu soo qaaday qalabka biisaha lagu jaro isagoo milicsigiisa indhaha isticmaalaya oo ku jarjarday wejiga oo kaga bilaabay indhaha si uu u dilo aabihii. Waqti yar kadib oo uu badbaadiyey isagoo ogaanay in ruuxaantu ay wax ka rabto Max wuxuu aabihii u sheegay inuu bedelay go'aankiisii
inuu ka tago shaqadiisa dukaanka. Kadib markuu maqlo jaakada, muraayadda ayaa ka saaraysa muuqaalka aabihii. Waxay u muuqataa inay tahay wicitaan hanjabaad oo loogu talagalay ugu badnaan inuu ku sii jiro dukaanka isagoo shaqaale ah goobta soo socota. Max ayaa ku soo noqonaya dukaanka si uu u sii wado shaqada, waxaana ka hor yimid labadii dambiilayaasha ah. Waxay ku eedeeyeen inuu ahaa waardiye caajis ah, waxayna weydiiyeen inuu wax ka og yahay dhimashada Ryan iyo Jenna. Si kastaba ha ahaatee, Max wuu diiday eedeymaha, wuxuuna u sheegay inuu wax lug ah ku lahayn dhimashada. Kadib su'aalo la weydiiyey, dambiilayaashu way u oggolaadeen inuu baxo, laakiin weli waxay u haystaan inuu tuhman yahay. Kadib Max ayaa soo galay dukaanka oo hor istaagay muraayadda. Kadib wuxuu weydiiyey muraayadda cidda ay tahay. Waxay rabto si lama filaan ah muraayadda tusinaysa jihada toosan. Kadib kor ayuu koray jihadii muraayadda ay siisay ayuu raacay, oo wuxuu gaadhay sanduuq uu ka helay calaamad ID oo gabadh lagu magacaabo Eleanor Reynolds. Waa isla inantii oo laga waayay xafiiska 2 bilood ka hor. Run ahaantii waa gabadhii sawirkeeda lagu dhejin jiray meelaha. Max ayaa si taxaddar leh u akhriyay macluumaadka buug-yaraha intuusan u yeedhin Eleanor walaasheeda ka weyn oo ah gabadhii raadinaysa iyada. Maalintii xigtay ayuu booqday Elizabeth isagoo ka shakisan inuu rumaysto inuu arkay iyada. Max ayaa wax walba u sharaxay, wuxuuna u sheegay in walaasheed laga yaabo inay xidhiidh la leedahay shaqaalihii dhintay. Elizabeth oo weydiisay sababta uu weli uga shaqaynayo dukaanka. Elizabeth ayaa sidoo kale u sheegaysa Max in Eleanor markii ugu dambeysay lagu arkay xafladii furitaanka ee dukaankooda oo la la'aa tan ilaa ay hadda, waxaana lagu waayay dukaankii muraayaddu dhex taallay. Max ayaa mar kale muraayadda ku arkay Eleanor iyadoo maqas gacanta ku haysa iskuna dayaysa inay disho, isagoo argagaxsan iyadoo u sheegaysa inuu samayn doono wax kasta oo ay rabto oo uuna ka caawin doono oo ay aargoosato. Kadib Eleanor maqaska ayay isgelisay. Max ayaa kasoo toosay riyadii. Kadib Max ayaa kusoo laabtay shaqada. Wuxuu wacay Elizabeth si uu ogeysiiyo taariikhda saxda ee Eleanor. Waayida waxa uu samaynayaa si uu u ogaado in kamarada ammaanku ay wax ka duubeen wax ku saabsan Eleanor. Wuxuu galaa taariikhda nidaamka kombiyuutarka si uu u ogaado in sawirada taariikhda gaarka ah ee la tirtiray. Wuxuu sidoo kale ogaaday in qofkii ugu dambeeyay ee daawada faylalka amniga uu ahaa Henry. Wax yar kadib Elizabeth iyo Max ayaa gaadhay guriga Henry si uu wax uga weydiiyo muuqaalka la tirtiray. Henry ayaa beeniyey oo sheegay inuu waxba ka ogeyn, waxayna weydiiyeen inay tagaan. Si kastaba ha ahaatee, Max ayaa guriga ugu soo galay oo ogaaday in wejigiisu ka xumaaday goynta muraayadaha. Kadib Henry ayaa qirtay inuu tirtiray faylalka kadib amaro ka yimid Keller. Max iyo Elizabeth waxay ku tuhmeen Keller inuu sidoo kale ku lug lahaa maqnaanshaha Eleanor intii lagu jiray qirashadiisa. Waxay ka shakiyeen inuu wax qarinayo. Max iyo Elizabeth way baxeen si ay u ogaadaan waxa Henry uu isku dayayo inuu iyaga ka qariyo. Qolka xiga waxaan ku aragnaa Max iyo Elizabeth qaybta hoose ee dukaanka oo quus ka taagan si ay u helaan tilmaamta Henry oo isku dayaya inuu qariyo tuhmanayaasha. Max wuxuu arkay Bilcus waxaana isku dayay inay galaan meelaha gurguurta. Kadib markay dhaqaaqdo intay ku jiraan saldhigga hoose, wuxuu ogaaday mid ka mid ah kamarada ammaanka. Keller ayaa qabsaday Elizabeth wuxuuna ku xidhay meel. Si kastaba ha ahaatee, Elizabeth way isxaraysay waxayna u carartay jihadii ka soo horjeeday. Kadib wuxuu isku dayay inuu toogto Max, taasoo keentay inuu dib u socdo, wuxuuna si lama filaan ah u muujiyaa meydka Eleanor. Kadib horey uga qayb gashay xafladii furitaanka ee ka dhacday dukaanka, halkaas oo Eleanor lagu arki karay iyadoo la hadlaysa Jenna iyo Ryan. Jenna oo doonaysa inay shaqaalaheeda gacanta ku hayso si ay wax ugu qasto cabitaanka Eleanor, taasoo ka dhigaysa mid miyir daboolan. Kadib Keller ayaa yimid oo soo qaaday iyada, wuxuuna u sheegay kuwa kale inuu gurigeeda geynayo. Kadib wuxuu keenay gudaha baabuurkiisa iyadoo miyir daboolan, kadibna iyadoo ku hadlaysa hadallo aan loo baahnayn, waxayna isku dayday inay la dagaalanto. Laakiin markay isku dayday inay cararto, Keller ayaa ceejiyey oo sababay dhimashadeeda. Ka hor intayna dhiman, Eleanor waxay ruuxdeeda ku wareejisay muraayadda u dhow ee hadda jirta. Keller wuxuu qabsaday Elizabeth, wuxuu sidoo kale muuqaalkiisa ka arkay muraayadda. Elizabeth way la dagaalantay oo waxa u suurta gashay mar kale inay ka cararto, laakiin mar kale ayaa lagu qabtay qoriga. Keller kadib wuxuu isku dayay inuu dilo sidii uu ku sameeyay Eleanor ka hor intuusan maqlin qaylada Elizabeth. Max ayaa u soo degdegay markuu Keller u dhowaa inuu ceejiyo siduu u dilay walaasheed. Max ayaa yimid oo ka soo jiiday isagoo dagaalamaya. Max ayaa sababay inuu Keller ku riixo muraayadda hortiisa, halkaas oo uu ku arkay Eleanor, kadibna u qirtay Max caawintiisa oo u soo jiiday Keller gudaha muraayadda. Ugu dambeyntii, Eleanor waxay dishay dhammaan dadkii ku lug lahaa dilkeeda. Max iyo Elizabeth waxay istaageen naxdin kadib markii ay arkeen tan. Muuqaalka ugu dambeeya waxaan aragnaa Henry oo ku sugan saldhigga booliska oo ay la socdaan labadii dambiilayaal oo weydiinaya su'aalihii uu Max weydiiyey. Henry ayaa qirtay ku lug lahaanshaha dilka Eleanor. Imankuu Henry keligii ku sugnaa qolka su'aalaha, muraayadda meesha ku taal ayaa bilowday inay dillaacdo. Baqdin ayuu kasoo hor istaagay muraayaddii oo uu uga yeedhay magaca Eleanor isagoo ka qoomamaynaya. Waad ku mahadsan tahay daawashada filimka. Haddii aad ka hesho muuqaalo noocan ah, like noo saar. Aan isku aragno muuqaalka xiga. Maca salaamo.